بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا سوماليد ميل joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku amayeelo cidii dhibka Allah ka qaado cidii dan la oo fiyo inta baahan Allah deeqoynta bogta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. qodobka koowaad, Israa'iil oo qirtay sheegtay fashishay inay isticmaashay ciidda iyo dhulka Soomaaliya xilligii ay ku jirtay dagaalka wadamo dhowr oo ay ka mid tahay Ciraaq iyo Azerbaijan iyo Imaaraadka iyo gobolka Somaliland inay isticmaashay sheegtay kalmadan ka oranaya. qodobka labaad, dagaalkii oo dib u qarxay Iiraan oo madaafiic oo kaga qaaday Israa'iil khasaarooyin lixaad lana u geysatay iyadana kalmadan ka oranaya. waa qodob koowaad. hadda ka hor waxaan idiin sheegay dadkan Soomaalida hoggaanka u ahay dad maxaan cunaa ah, waxba aan ogeyn, geopoliticska aan la jaan qaadi karin, isbeddelka ku dhacay adduunka aan waxba ka ogeyn, waxna kala socon, wixii loo dhiibo oo yar ku qanacaya, diintooda kuwa iibsanaya inay yihiin marar badan baan idiin sheegay. waxaan idiin sheegay inuu bays ku yaallo Berbera, mid kalena ku yaalo Boosaaso, labadaba ay leedahay Israa'iil, cidda dhistayna ay tahay Imaaraadna ay tahay extension to Israa'iil. cadaawadda Israa'iil ay ku wado muslimiinta iyo caalamka Carabta cidda horseedka ka ahi ay tahay Imaaraad. meel kastoo Imaaraad ay joogtana ay Israa'iil joogto. horaan idinku sheegay qaar baa waxay u qabeen waagii aan ka sheekeynayay Imaaraad actually nin shiikha oo oday oo aan magaaladan kula kulmay Nairobi ayaa wuxuu igu yiri asad baa tahay, libaax baa tahay. maxaa dhacay baan iri. wuxuu yiri waan kula yaabi jiray, waxaan dhihi jiray war wadaadkan nimankan masaakiinta ee Carabta iyo muslimiinta maxaa ku saliday. wax badan 7 sano kadib waxaan ogaaday wixii aad sheegayso dhan inay run ahaayeen. waad aragteen maalin dhaweed waxaa guddiga human right-ka ayaa wuxuu qorayay intii aan ka sheegay Boosaaso iyo Berbera iyo Soomaaliya inay isticmaalayso Imaaraad si ay u weerarto Suudaan u dhibaatayso. weerarka Suudaan wuxuu isugu jiraa laba qaybood. qayb waa qayb lacaga, waa dhaqanka Israa'iil, dahab baa laga raraa, si illegal looga raraa 19 tan baa laga raraa bil walba oo dahab ah. qodobka labaadna waa xasuuq iyo dhibaatayn iyo kala goyn iyo in lagu khasbo lagu qulaamiyo wixii la oran jiray Abraham Accord. iyadana waxaa iska leh Israa'iil. Somaliland iyo Boosaaso Puntland, labada mandaqadood oo ay reerkaasi qaateen dadkooduna raalli uga noqdeen, iliidkoodu raalli uga noqdeen. in badan oo ka mid ah warba ka hayn. rag baan u diray madaxa oo reer Puntland inay galaan bayska aan sheegay oo underground-ka ah, dhaafi waayey agagaarka airport-ka macmalka ah iyo dekada macmalka ah oo ay ka samaysteen bayska aan loo ogolayn dadka Soomaaliyeed, meelaha dhaafi kari waayey, gudahana aan bageli karin, madaxweynaha geli karin. hadda ka hor baan sheegay wixii waa fashilmeen. Israa'iil baa waxay sheegtay Israa'iil ballan male, naxariis male, axsaan male, abaal male. ilaahay baa abaal ka waayey oo wanaag kasta u galay. akhriya suuratul baqara وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. يعني أخرية أنت جارو أي بلنتك بحين أنت بور لقالي ولا دور صاري مركاسي دار وحيكون مرين ميثاق دار بلن لقوة كي وحيكون مرين إنا يسأون نغوني إسلامك يكبحين هدروا إلهي مركني مكا بلنتو قبحين أو بنت وشيغية أديك إني بينكو شيغان هدادان آمن سنين إني تيري كرتو صورة قلتهاي غبي باتهاي حولاتهاي حيوان سعوداتهاي وحبا ما كان أوجد. إلهي خلقي عبوري waxa سورة البقرة kaga sheekeeyay iska khuraafaad iyo sheeko ma ahe waaqic jira laga dhaadhicinaya xoolaha hurdada ka kac oo quraanka ku baraarug. nimanka waa cadow laa ya'luunakum khabala, inay idin hoojiyaan oo ballanta kaaga baxaan oo ku bahdilaan ka daali maayaan kana gaabsan maayaan.
ربي باساكله وما تخفي صدورهم أكبر قد بدت البغضاء من أفواههم حمان تأيان عيبك أفكو ذي كسو ظاهريسا إسرائيل باوحي لادهاي سومالي لان بان استعمال why do they need to say that وما باهنين يرهدان ما يقوليهن because كما كلا جعلا كاقا عالن كلا أرديو أو مسكينكا أو قاونهم مذو ويهودان وجعلنا ولا لها كوهايا كما أي كلا جعلا هدادي ما تدي هدي كله مسلطة أي قيبينس إيران إيا مدافع حوتك وهدي كرو بيرهبان إن لغوغو أفوفو وحكران كوغو دريها بربرا دكدا إيا ريبوركا وأهميشا أي إسرائيل ليرهي حتى استعماشنا بيس كانوا دياردونا بانكرادة ugu jiraan waxa yaala Iron Dome kii qabanayay madaxfiic cirka ka imaanaysa hargeysa ka qabanaya oo burcaya ka qabanaya oo magaalooyinka kale oo dhan ka qabanaya xoolaha tahay wax ma kala taqaanide waradkaaga cadaab ha ku soo afuufin aadan shuqul ku lahayn dad slaynayo oo ka awood badan maxaa faraha ku galiyay awood aadan lahayn maxaa ku galiyay dagaalkeeda ماذا استفاعي كرا محوتي قاس كودو أو لبضا بقولو ميل كيلومتر كوتشي أتكلم عن كرتا ومدافع الإمارات كأيكو أفوفين إمارات كل عقب بعد كوسيو every day نيس كوردين مردم أي سنة كود أطوري بعد أدوك الدفاع كرتا إيران مسلطة أي صوت وري أو أي كم ديهين كوي شهاب أي كم دحين كوي إسقيبيني هدي لقوقي وهل مدفع انتو اسكالافور فروسي ديتن مدح نقطة بهرقيسو دن دماري كرا ورمحا كاخلدن يا كاقلي ته دادكاقينا كوه قامس المصيبو كوه سرحلين ايو عالم كساء ولا ارديو امودد حيوانك اني قد كصوبحين اموددو عالمك با يسي كله لانجرين وريا انتا سو ودن با اسرائيل راعدي او فتدا كوه دتا وح عالمك ودا وطماري مريكن كاس افريا لا تكسا في تدا ولا تاقن قف يجا أنا هينو يهود هينو علم يهوديات وتمارين الدون على كل لون عبيه معاكو قرري حوليو معاكو قريه بدان وكاسه ماكو قرينيا أحسان ماكو سمينيا سبب كليو أيكو شيء وحوي دبكاجا مكلا تعلن إنا هو كتان ربنا الدون كودينو أولو لا ربنا مصيبة إيا الضب اللوري إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوكو شيء إنا يسان كون حريسان لا يألونكم خبالا عداود إلى كل جويان إلى دب كوجيستان كدالي مايان كانت دورسن مايان أنت كبر محل شيء كرامر اعتراف برهادني اعتراف قال لك أقعد اعتراف كأترادينيس روية حوليه محبط ما اعتراف كأترادينيس ما تدخل إلا الله يا ما مصيبة إنها تسوي جديد به وحالي الشمبري مالين بيتبقى هذا مالين تينا جوري بولك هو يدي كوجبت عرو مالين بعد حكم قبضي maalintiina hoog iyo ba iyo halaag iyo hantool iyo cib iyo fadeexad baad u soo jeeday ummadda aad ka mid ka tahay gebi ahaanba meel kasta waxa lagaga sheekeynaya arrinta qodobkaas markaan intaa kaga gudbo Iiraan waxay soo afuuftay missiles isdaba socda wave yani mawjad bay soo afuuftay gantaal ah waxay ku soo afuuftay Israa'iil Tel Aviv meela aad u badan ba gubanaya lamana ogolo in la daawaco ilaa 3 video baa si public u soo baxay oo markaas la daawanayo loo jeedo dhibaatooyinka ay ka geysteen oo aan la qaban ee gudbay ee dhaawac geystay target koodina la kulmay sida la sheegay positive targets meelihii loogu talagalay ku dhacay dhibaato weyn geystay Netanyahu wuxuu wacayaa Donald Trump daqiiqadaha hadda soo socda Donald Trump wuxuu leeyahay waxa ma jiraan everything is good waxaan Iiraan amray inay dib ugu laabato wada hadalkii oo miiskii ku soo noqoto maxaa marka kalifay dagaalkan waxa kalifay waxay diiday Israa'iil inay joojiso dalbalaarsiga ay ka wado Lubnaan isla markaasna ay joojiso laynta ay dadka ku laynayso Lubnaan in badan bay woonisay Iiraan khalaas waa soo farabaxsatay dagaalkan hadda ahi kii ka horreeyay wuxuu kaga duwan yahay kana xun yahay kaga xun yahay awal Hormuz kaliya ahayd 20% oo dhaqaalaha adduunka ah gaar ahaan shidaalka iyo energy-ga ayaa dhibaatadu ahayd oo dhibaato ummadda caalamka oo dhan gaartay ah waxaa ku darmaya another 20%
baa ku darmay oo iyaduna xirmaysa oo ah baabulmandab already Yemen waxay ku dhawaaqday inay xirayso baabulmandab already Iraq waxay ku dhawaaqday hawadeed inay xiratay maxay ugu dhawaaqday because waxa la sheegay waa la fashilay in iyada laga soo duulay in imaaraadka laga maamulayo Netanyahu laftigiisu uu joogay xilliyadii dagaalka mar la waayo uu cararay halka uu tagay in Somaliland in laga soo duulay shidaalkana laga qaadanay refueling baa loo isticmaalay iyo Azerbaijan oo iyadana base ay ku leeyihiin oo ay ka soo duulayaan qarsoodi aan la ogeyn intaas oo wadan dhamaantood waa dalal muslima musiibada dhacday iyo fadeexada dhacday bayna kamid tahay ceebta dhacday bay kamid tahay dhexdaan kaga jirnaa haddaan nahay Soomaali marka maxaa dhacaysa meelahaas oo dhan waa target waxa kale oo la sheegayaa meelihii baysaska ahaa Mareykanka ee ku yaalay khaliijka iyagana inay beegsadeen adduunku marka xagee u socdaa geopoliticsku xagee u socotaa waxa khasban caalamka oo dhan ba khasban Netanyahu ma controli karo Trump isaga la controlaya Trump uu diiday dagaal ma gali karo yiri aqalka baarlamaanku waxay baasiyeen inuusan dagaal qaadi karin without the approval of the parliament iyadoo uusan ka helin ogolaansho baarlamaanka wuxuu ballan qaaday inuusan waxba ka soo qaadayn go'aankaas maxaa yeelay muxuu samayn karaa sanadka inta la keenaa la dilaya haddii sanadka uu ku dhiman waayana isaga veto saaraya haddii sanadka iyo baarlamaanku baasiyaan veto saaraya dagaalkana saas ugu gariya manaba dhowraba sharciga hadday timaado Israa'iil in badan oo kamida kuwa meesha ka qaylinayana way ku khasban yihiin inay taageeraan isaga sidiisoo kale ayay yihiin la haystayaal maadaama marka uusan controli karin dagaalka inuu galaa lagu khasbayaa waxaad maqli doontaa next few hours America ayaa duqaysay Iran maxaa yeelay America waxa iskale ay u shaqaysaa maamusha dhaqaajiya joojiya Israa'iil wixii soo kordha wasla soconayna ilaahay waxaan ka baryayaa guusha inuu siiyo cidii ku xaq leh ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu siiyo muslimiinta guusha cadawgana uu jabiyo وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته